Mustafa waa wiil dhalinyaro asal ahaan Carab ah oo Muslim ah. Waxa uu ka shaqeeyaa warshad baabuurta samaysa oo ku taal mid ka mid ah wadamada Yurub. Xilli uu ka adeeganayay supermarket, waxa uu arkay gabar Muslimad ah oo xijaaban kana adeeganaysa isla goobta uu ku sugnaa. Kadib markii ay soo aruursatay adeegii ay u baahnayd, waxa ay u jihaysatay qaybta cashier-ka si ay u bixiso lacagta adeega ay soo qaadatay. qaybta cashier-ka waxaa fadhisay gabar iyadana asal ahaan ka soo jeeda wadamada Carabta. Waxay ku labisneed labis ku dhagan, munaasabna aan ku ahayn in ay xirtaan gabdhaha muslimaadka. Sidoo kale wajigeeda waxaa ka buuxay make-up aad u fara badan. Iyadoo si aad ah u caraysan fiirinaysana gabadha xijaaban, ayay bilowday in ay afkeeda geliso qaar ka mid ah adeegii gabadha xijaaban, kadibna dhulka ayay ku tuurtay si jees leh. Gabadha xijaaban waxay ahayd mid deganaanteeda ku dhagan oo aan xanaaqin. taasna waxay sii kordhisay carada gabadha aan xijaabnayn ee cashier-ka fadhisay. Way is celin kari weysay, waxayna banaanka u soo saartay xaasidnimada iyo maseerka ay u qabtay gabadhan asturan. Waxayna ku tiri, halkan waxaan ku qabnaa dhibaatooyin fara badan, waxaana ka mid ah dhibaatooyinkaas xijaabka aad xiran tahay. beledkan ama wadankan ma ahan wadan cibaado ama mid diinta lagu mamaaraseeyo. Sidaas darteed ku laabo wadankaaga hooyo haddii aad doonaysid in aad ku dhaqantid diintaada. Intaas kadib gabadhii xijaabneed ayaa iska fayday indha shareerkii ay wadatay. La yaabkuna waxa uu noqday in aysan asal ahaan ka soo jeedin Carab. Waxayna ku tiri, ma waxaad doonaysaa in aan wadankayga u laabto? Kan ayaa wadankayga asalka ah, fac ilaa ka fac. Islaamkuna waa diintayda aan ku faano. Adiga iyo kuwa la midka ah waayo kuwa diintooda iibsaday. Kadibna waa ay ka dhaqaajisay. balse Mustafa oo goobta ka dhawaa maqlayana sheekada dhex martay labadan gabdhood ayaa si aad ah ula yaabay iimaanka iyo akhlaaqda gabadhan xijaaban. Waxa uu bilaabay in uu dabagal ku sameeyo gabadhan dhowrsan xijaaban ee diinteeda ku adag ilaa laga gaaray hoyigeeda. Halkaas ayuuna ku bartay aabaheed. Kadibna waxa uu sheegay in gabadhiisa lagu magacaabi jiray Martina. Kadib markii ay islaamtayna ay magaceeda ku bedeshay Fatima. Intaas kadib Mustafa waxa uu aabaha Fatima u sheegay in uu doonayo in uu gabadhiisa guursado. Sidoo kale waxa uu sheegay shaqada uu ka shaqeeyo iyo wadanka uu asal ahaan ka soo jeedo. Maalmo kadib Fatima way ogolaatay in ay guursato Mustafa. Meherkii ayaana dhacay, waxaana ay isu dhaleen oo uu Ilaahay ku irsaaqay 3 caruur ah. Muddo kadib Fatima iyo Mustafa waxay u laabteen wadankii uu asal ahaan ka soo jeeday Mustafa. Markii ay caruurta gaareen da'da daraasada, Mustafa waxa uu bilaabay in uu raadiyo iskool qaas ah oo manhaj fiican leh. Waxaana uu la wadaagay xaaskiisa Fatima, balse waxa uu aad ula yaabay markii ay si adag uga hortimid fikradiisa in iskoolkaas la geeyo caruurtooda. Waxayna ku tiri, aniga iyo adiga waxaan nahay Muslim, waad garanaysaa luqadda Carabiga. Anigana Carabiga waxba kama fahmo ilaa kelimado yaryar maahane, laakiin waxaan si fiican u aqaan in Quraanka Kariimku yahay dastuurkeena, manhajkeena iyo wadada sharafteena iyo horumarkeena. Marka waxaan muhiimadda koowaad u siinayn Quraanka Kariimka marka hore, kadibna aan caruurteena barno culumta kale. Waxa dhan oo kale ka hor waxa aan doonayo waa in caruurteena marka hore xifdiyaan, bartaanna akhrinta iyo tafsiirka Quraanka. Taas waay aragtideeda, ayay ku tiri Fatima saygeeda Mustafa. Intaas kadib Mustafa waa uu ku gacan sayray aragtida xaaskiisa Fatima, isagoo xujo ka dhiganaya in caruurtooda weli ay yar yihiin. Laakiin Fatima ayaa ku celisay in ay fahansiiso ilaa markii dambe uu Ilaahay waafajiyay Mustafa in uu aqbalo talada xaaskiisa wanaagsan. Waxaana uu bilaabay raadinta madraso qaas u ah xifdinta Quraanka Kariimka. Kadib maalmo uu raadinayay, waxa uu ugu dambeyn helay madraso caruurta lagu xifdisiyo Quraanka Kariimka. Laakiin halka dhib ee jira waa inay tahay madraso aan laga soo bixin. Micnaha caruurta waxa ay ku sugnaanayaan 7 maalmood, loomana ogola in waalidkood booqdo ilaa isbuucii 1 maalin oo kaliya maahane. Markii uu ku laabtay guriga, waxa uu la wadaagay xaaskiisa Fatima, isagoo islahaa waxay ka laaban doontaa fikradeeda. Balse waxay ku tiri, waan ku sabri doonaa wax walbo, waan u adkaysan doonaa xanuun walbo haddii caruurta ii baranayaan Quraanka. Sanad kadib waxaa soo baxay caruurtii oo Quraanka xifdisan, tafsiirkiisana soo bartay. Intaas kadib Mustafa isagoo dhool cadeynaya oo faraxsan ayuu xaaskiisa Fatima ku yiri, waxa ay barbaarisay Fatimadii reer Yurub, taasoo aan garanayn Carabiga kelimado yar maahane, halka anigoo Muslim ah, Carab ah, Quraankana aqaan aan barbaarin lahaa. Haddii aad ka heshay qisadan, like saar lana sii wadaag asxaabtaada. mahadsanid.